بلدان كرفيو إنام كارو فاشدو قدافوين دعيو وياها كردات شو وقتي كنا لدي أنا وحان كديايو مكان سو كدينايو كوني إسوتاكاني وقو أندوينو injineerada halkan u yimi inay ku qaataan tababarka culunta biyaha iyo maamulka biyaha Somaliland mudnaanta waxay siinaysaa sanadkan biyaha dowladda Israa'iilna waanu sheegnay in mudnaanta koowaad aanu siinayno biyuhu waa asaaska nolosha waxa kastaaba waxay ku dhisan yihiin biyo ilaahayna quraanka saas ku sheegay markaynu biyo helo ayuu caafimaadkeenu hagaagaya markaynu biyo helo ayay waxbarashada iyo iskuuladu hagaagaya markaynu biyo helo ayaa adeegga bulshadu iyo warshaduhu inoo suurtagelaya haddaynan biyo helin beerana ma beeran karo xilliyada roobka helaa waa xilliyo kooban marka waxaynu ku dadaali doonaa siyaasadda dowladduna tahay dowladda Israa'iilna kala hadalay in 3 sano gudahood qof kastoo muwaadini uu helo biyo water for all qof kasta inuu biyo helo wata wax kale iska dayso caasimadeenu maareeya biyahan maalin weyd la kulmay Hargeysa wuxuu ugu yiri Hargeysa inta biyo hesha waa 30,000 oo guri ay biyo ku jiraan caasimad waxa lagu qiyaasay marka milyan iyo bar ilaa 2 milyan rabalaha qiyaastaan caasimad 2 milyan ku nooshay milyan iyo bar oo 30,000 household ay qasabada ku jirto anigu Hargeysa waxaan ku soo noqday 1999 biyaan ka cabbo waxay ugu horeysay qasabad 2014 waxaa laga yaabaa xaafado badanina inaanay weli biyo helin dadka intiisa badanina aanay biyo helin markay 30 kun oo guri Hargeysa ay biyo helaan macnaheedu caasimaddu way biyo laaday weey degmooyinkii iyo gobolladii iyo jiilaalkii sanadka soo socday iyo waxaas oo dhan marka la isku daro si jiilaal kasta waxay naga dhintaa xoolo badan mararka qaarkood dadka waa dhinta biyo la'aan iyo haraad marka waxaa la doonayaa aqoontii iyo farsamadii aynu kaga bixi lahayn kontonkiina injineer bay ku xidhantay ama badda macaaneeya ama dhulka ka soo saara waxaana laga rabaa biyo aynu cabno oo beeraha ku beerano oo dhakhtaradu isticmaalaan oo iskuulladu bilaash ku helaan waxaynu u baahannahay inaynu helno waxaynu u baahannahay dowladda waanu ka codsannay inay gacan ka geysato Israa'iil we told the Prime Minister that our priority is water dowladda Israa'iilna waxaan filaynaa inay gacan inaga siin doonto howlahaas iyo horumarinta iyo biyo soo saarka iyo biyaha maamulkoodaba laakiin saan idiin sheegay rajada ummaddu waxay ku xidhan tahay kontonkiina la tilmaamay inay biyaha soo barateen waa laga yaabaa kuwo kaloo dee injineerna waa joogaan iyaguna fursadda way heli doonaan haddii alla ka dhigo laakiin xilku maanta wasiirka ma saaraa anna ima saaraa idinku idu saaran yahay hablo iyo wiilalba
waxaan rajaynayaa inaad koonaskana si fiican usoo barataan magac wanaagsanna keentaan siday kuwa kalena fursad wanaagsan u helaan. dadka ka soo horeeya dadka ayaa ama albaabka u fura ama albaabka ka xidha. marka waxaan filayaa in albaabka u furi doontaan insha allahu. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa.